ugu horreynta wadaadaan channelka subscribe hore u saarin fadlan subscribe taabo kabacdi waxaad sii taabataa jeliska yar notificationska si video walba oo cusub kuu soo gaadho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبو channelka Somali Edition maanta daawadayaal waxaan idin soo bandhigi doonaa application magaciisa loo yaqaan Space App kaas oo ka dhigaya in aanad application dambe delete karayn oo haba yaraatee wax application ah oo aad inta delete garaysa aad mar labaad u baahato oo aad Play Store ka tan ka soo dejisato aanay dhici doonin. daawadayaal application kan waxa uu telefoonkaaga kaaga dhigayaa ama waxa uu apps-ka kaaga dhigayaa inuu yareeyo MB-ga ay apps-kaasi ka qaadanayaan mobile-kaaga. haddaba daawadayaal waxa aad badanaa waxay dadku ka caawdaan ama ay ka cabtaan in mobile-kooda application-ada ku jira ay MB-yadoodu aad u bato sida imika kale hadaynu ka soo qaadnaba Facebook iyo Messenger-ka labada application hadaynu tusaale ahaan soo qaadano waa laba application oo marka mobile-ka geliso MB-goodu uu bato intii hore ee haayeen uu ka bato sidaas haddaba kuwa u yareyso waxaad u baahan tahay application-ka magaciisa loo yaqaan Space App daawadayaal linkigiisa waxaan idin dhigi doonaa video hoostiisa kadib markaad soo dejisataan ugu horreynta sidaas ayaad ugu dhufanaysaa application-ka kabacdi waxaad ku dhufanaysaa halkay ka qoran tahay next haddana nagasteeda la sii dhacaysaa kadib waxaad oranaysaa get started kabacdi sidan ayaa kusoo bixi doonta marka sidan kusoo baxdo waxa uu ku tusayaa inta aad ka isticmaashay storage-kaaga mobile-ka 7% ayaan ka isticmaalay kadib haddaba imika application baan idin tusi doonaa aynu rabno inaynu yarayno application-ka waa application-ka loo yaqaano photo studio haddaynu eegno intii imika MB ahaan ka joogto amaba internal storage-keeda intaynu ka isticmaalnay waxa weeyaan mobile-ka intay ka haysato waa 27.5 MB ay ka haysataa imika wada aragtaan total application data waa 27.5 MB imika haddaba intaa wada aragtaan baan malaynayaa intaas ayaa aynu yaraynaynaa kadib waxaad tegaysaa application-ka aan idin sheegay markaad tagto waxaad ku dhufanaysaa halkaa ugu horeysa scan-ka qoranta ugu hooseysa kadib waxa uu qoran doonaa accessibility-ga soo on garee kadib halkaasaad waxaad tegaysaa halkaa ugu hooseysa tegaysaa kadib Space App baad ku dhufanaysaa kadib halkaa ofta ah ayaad on ka dhigaysaa kadib waad iskaga noqonaysaa markaad ka noqoto waxa uu bilaabi doonaa inuu application-yadii uu baadho kadib aad ka dhex doorato application-ka aad rabto inaad yarayso marka wuxuu ku yidhi 4 second 2 second 3 second kadib uu dhamaanaysaa got it buu markaa kadib imika waxa ku soo bixi doona application-yadii ku jira telefoonkaaga dhammaan waa ay ku soo bixi doonaan waan ka wada qaadanaa wax kale oo dhan application-ka aan rabnay ayaynu doonanaynaa application-ka aan example ku qaadanay imika wada aragtaan high usage weyn waa 115 MB ayuu ka haystaa storage-ka application-kaad sidaas sax u saaraysaa doonaysa inaad yarayso kadib continue ayaad ku dhufanaysaa kadib waxa ku soo bixi doonta application-kii oo sax saarantay waxaad ku dhufanaysaa markaa compress selected apps ee halkaa hoose akhtarka aad ku dhufanaysaa kadib wax yar ayaad saa wada aragtaa isaga automatically isku wadaya markaad wax yar sugto kadib waxa uu qoran doonaa finished waa ay dhamaatay markaaba waxaan ku odhanayaa halkaan waxaad odhanaysaa check now markaad tiraahdo kadib waxaad odhanaysaa convert now kadib waxaa ku odhanayaa save your more storage keep apps in your phone menu keep this apps even if Space App is uninstalled waxa ku yidhi baalka yare storage-kiisa application-kan inta ka qaadanayo sidoo kale waxa uu ku yidhi application-ka menu-gaaga phone-ka ka geyso ama application dalka ugu jiraan gee sidoo kale haddaanu application-kan Space App aanu ku install garaysanayn sidoo kale ku daa sida uu yahay oo compressed noqdo kadib waxaad ku dhufanaysaa yes do it kabacdi mar labaad ayuu ku celin doonaa waad iska yara sugaysaa kadib markaaba u dhammeynaya markaaba dhammeeyo waxaa kusoo qori doonaa finished kadib waxaad ku dhufanaysaa halkay ka qorantay got it
kadib iminka waa aad yaraysay MB-gii application-ka imika waa aynu yaraynay kadib waynu iskaga baxnaa. markaynu iskaga baxno waxa aynu tegaynaa application-kii caadiga ah. kadib waad arki doontaa photo studio waxay isku bedelaysaa midab kale ay isku bedelaysaa oo color ma yeelanayso. haddaynu iminka eegno photo studio MB-geeda haddaynu iminka eegno waad yaabi doontaa runtii 96 KB MB ba maaha waa 96 KB runaantii waad garanaysaa in MB inta isku jiraan halkii 1000 KB wuxuu leeyahay 1 MB idinkana 96 KB oo MB way sheegtay 1 MB bayna macal ayna gaarsiisnayn. waa la yareeyay marka daawadayaal sidaas ayaad u yareyn kartaa. laakiin waxaad ogaataa in iminka application-ka aad si delete karays oo kale ayuu yahay oo marka doonaysa inaad ka qaado saas ayaad ugu dhufanaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa halkay ku qorantay uncompress kadib waad sugaysaa kadib waa u dhammeynaya. markuu dhammeeyo boostayn yara qaban doonaa ama iska sugnaaba. waayo haddaan israadimka boosta qabaadaan halkay reebso jidin soo wada xirmay ilaa uu waxan ay weeyeen abkooda uu markaas sidaas ay iska yareeynaa waa in yar iska dhamaanaysaa. sidaas ay ku qaadaysaa uncompress markuu ka dhameeyo waynu yareegnaa uu dhameynaya markaaba. markuu inka uncompress dhameeyo application-ka hadana dib ayaad u soo install gareynaysaa oo application-kii la yareeyay ayaad dib ugu celinaysaa intii uu ahaa kadib sidaas ayaad ku isticmaali kartaa. marka daawadayaal halkaas u dhammaaday marka berberin ayuu kuulada yara sugaysaa kabacdi wakaas u dhammaaday waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay open kadib halkaana egasta ayaad taabanaysaa. imka application-kii photo studio waa sidiisii oo caadi ayuu noqday oo MB-giisii intii ayuu ku noqday. haddaynu soo 83 MB ayuu noqday oo MB-giisii MB-ga caadiga ayuu kusoo noqday. marka daawadayaal sidaas ayaa loo yareeyaa oo imika application aanad u baahnayn oo dhan ayaad sidaa ka dhigi kartaa oo MB-gooda aad yareyn kartaa oo iskaga jiray markaad u baahdana sidii imika baad uga qaadaysaa kadib isaga is install gareynaya aad mid taamis kadib oo isticmaal hadana sidii mid ku celinaysaa. marka daawadayaal application-kan waa application aad ka faa'iidi doontaan run ahaantii waan hubaa inaad ka heli doontaan. daawada haddaba haddii uu video-gan ku qanciyay like saar video-ga casharka maanta intan ayuu noogu eegyahay. sidoo kale haddana channel-ka hore subscribe taabo si ay asxaabtaada haddii aad uga faa'iidaan iyagana u share garay video-ga. daawadayaal video-gan maanta intaas ayuu noogu eegyahay. waa Cabdulle Maxamed Mooge iyo channelka Somali Edition oo idinka ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember